السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا عشر كيشانات شرحدة مادة بيولوجيا فصل كلاوي الطونات دوكسيجا ساري هديات كعصب تاهي كانالكا سبسكرايب صار قنبلال كان فرصي يكوسو جارا عشرة حقا سوسو علا سيادو هشد عشرة دي هره فلان فيديو بسكا كانالكا كودفو كدبنو حاركي دونتا عشرة دي oo ku dhigan aad iyo aad u mahadsan tahay. Casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay difference-ga between simple reflex action and condition reflex action. Difference-ga farqiga u dhexeeya simple-ka iyo action-ka midka yacni condition ku xiran yahay iyo midka simple-ka oo condition aan u baahnayn macnaha shuruud aan u baahnayn shardi uusan ku xirnayn. Marka laga hadlayo simple reflex action-ka single stimulus to bring about response waxa hal saameyn ayaa imaanayso taas ayaan dhalinaysa in response falcelin u yimaado. tusaale ahaan isha haddii dhagax uu ku socdo ama qashin ku soo socdo waa hal saameyn, taasina waxay keenaysaa blinking of the eye in ishii qofkii uu isku qabtay ay keenaysaa. sidoo waxa mid hindi sidoo kale la mid ah waxa kaloo la mid ah maxaa caffeine qufac ayaa la mid ah. waxaas dhan marka waxay ka tirsan yihiin waxa loo yaqaan simple reflex action-ka waa hal saameyn waxayna keenaysaa response falcelin ay keenaysaa. laakiin marka laga hadlayo condition reflex action-ka waxaa loo baahan yahay yiri repeated stimulus in waxaan lagu celceliyo loo baahan yahay. sababtu waxay tahay to bring about response in la helo response yacni falcelin in la helo. tusaale ahaan qofkan baawur ayaa la barayaa, baawurka si uu barto wuxuu u baahan yahay in uu ku celceliyo u baahan yahay. hal maalin kuma baran karo, wuxuu u baahan in lagu celceliyo tikraar loogu sameeyo lagu celceliyo ayuu u baahan yahay. baaskiil ayuu baranayaa waa in loogu celceliyaa, dabaal ayuu baranayaa waa in la bara lagu celceliyo wax hal maalin lagu baran karo maahan. taasa marka waa repeated waaye waa in lagu celceliyo waaye. laakiin kan single hal mar waa bas. sidoo kale wuxuu kala duwanaa lidhi simple form waa kan behaviorkiisa waa hore ay u jiro mid caadi diyaarsan waaye. aan sidoo kale is independent of experience wax experience oo khibrada uu u baahan yahay ma lahan macnaha automatically si ayaa loogu jawaabaya waxaasi. laakiin midkan laga hadlayo condition waxa leeyahay involves modification of behavior waa modification in la bedelo dhaqan qofkan hore oo u lahay macnaha oo ahayd baawur waditaan la'aan ma aqoonin, baaskiil sidii loo wada ma aqoonin, si loo dabaasho ma aqoonin, si wax loo qoro ma aqoonin, waa la baray macnaha modification macnaha waa la bedelay la bedelay. aan sidoo kale dependent on experience wuxuuna ku tiirsan yahay experience macnaha khibrad ayuu ku tiirsan yahay. si gaarayna u dhaxayso waxa u baahan tahay khibrad, si baaskiilka awood waxa u baahan tahay khibrad, sida imtixaanka u jawaabto waxa u baahan tahay khibrad macnaha aqoon ayaad u baahan tahay. qodobka saddexaad oo kala duwan waxay tahay sensory-ga kii fariinta qaadi lahay iyo midka jawaabta soo celiya motorka ah dhammaantood are the same all the time isku mid wey macnaha wax farqi ma u dhaxay. laakiin midka marka laga hadlayo wuxuu maraya maxaa la primary oo maraya secondary oo maraya macnaha maadaama tikraar ay tahay lagu celcelinayo wax hal mar la baranayo ma ahan. kan laakiin sensory waxaa mataqaanaa isla markii fariinta markii la qaado motorka jawaab soo celinayo in ishi la isku qabto kadib meesha ku imaanaysa hawsha. laakiin midkan waxay tahay in waxaan fariinta lagu celiyo maskaxda marka la geeyo lagu celiyo marka wax loo kala baxaya primary iyo secondary kala noqonayaan. okay halkan waxa ku leedahay wax loo yaqaan transmission of nerve impulses sidee u gudbaysaa fariinta marka fariimahaas ay ku gudbaan transmission soo ku imaan macnaha sidee ku imaanaysaa nerve impulse-ga. waxaa jira wax loo yaqaano resting potential iyo action potential labadooda maxay kala yihiin. resting potential xataa markuu xaalad nagi ku jiro nerve-ka uusan wax fariin gudbinaynin. a nerve impulses is an electrical charge waa danab chargeed or a wave of electrical waa sidii hirka oo kale wax u socdo oo kale way from charges waxaana shaqo ku leh yaqaano ion concentrations haddii ions macnaha sodium iyo potassium ayaa ku shaqo leh way across the surface of the membrane dushiisa ayay yaalaa marka. a nerve axon and then the ions involved marka ions ku lugta leh maxay tahay transmission are sodium and waxay noqonayaan potassium ion ayaa marka ku shaqada leh transmission-ka inuu dhaco. sawirka ayaa meesha noogu muuqan sodium banaanka taala potassiumna gudaha ayay ku jirtaa, positive-kana banaanka ku yaala negative-kana gudaha ayuu ku jiraa. hadhow labadaas isbedel doon markay imaado fariinta. marka waxaa lahay
a non-conducting fiber fiberka marka uusan waxba gudbinaynin oo wax farina uusan gudbinaynin described to be in a resting position waxaa loo qeexayaa ama la sheegaa inuu ku sugan yahay xaaladda loo yaqaano resting position ama xaaladiisa iska degan tahay oo yacni wax in farin ma gudbayso macnaha waa non-conducting fiber xarag ama wax aan gudbinin macnaha non-conducting aan wax gudbinayn fiberka waxaa loo yaqaana resting position in this marka state they are more so marka xaaladdan lagu jiro resting position lagu jiro sodium waxay ku badan tahay leer outside ku badan tahay then inside marka inside kan waxaa ku badan sida caadiga ah potassium-ta ku badan marka sodium-ta banaanka ku badan tahay potassium-ta gudaha ay ku badan tahay marka lagu jiro xaaladda resting potassium marka lagu jiro sodium-ta dibadda ay ku badan tahay potassium-tana gudaha ay ku badan tahay sida sawirka noogu muuqata sodium-ta ujeeda banaanka ay ku badan tahay potassium-tana gudaha ay ku badan tahay gudaha ayay ku badan tahay waa marka uu neerfaha yahay resting uu yahay marka macna uu naga yahay oo non conducting ah uu wax farin gudbinaynin marka isku soo duubay xaaladaas waxaa loo yaqaan resting positional waana marka uu neerfaha yahay waxaa loo yaqaan polarized waa uu iska nagan yahay waa polarized waay they are also sidoo kale waxaa jira relatively more anions waxaa lahaa negative charge kuwa negative-ka ah ayaa waxaa loo yaqaanaa anions macna negative-ka ayaa waxay in the exoplasm-ka gudaha waxaa ku badan negative-ka ku badan oo ujeedna negative-ka ayaa ku badan the net effect waxa ka soo bixi doona of this unequal isla ekaanshahan yani unequal isla ma ekaan yani xaaladan isla ekaanshan la'aanta ah distribution of ions is that there is positive charge outside waxay keenaysaa in positive charge banaanka yaalo the exoplasm and negative charge inside negative charge-gana uu yani midka negative-ka ahna uu gudaha ku jiro so that the membrane markaas xubka wuxuu noqonayaa isid waxaa leeyahay polarized xubka waxaa leeyahay polarized xubka goorma polarized yahay xubka wuxuu polarized yahay marka positive-ka uu banaanka yaalo negative-kana uu gudaha ku jiro ayuu wuxuu noqonayaa polarized ayuu yahay waa non-conducting fiber resting positional waa liidaa during resting positional inta resting positional uu ku jiro neerfaha sodium-ka ions are actively pumped out banaanka mar walba loo tuurayaa by mechanism loo yaqaano sodium pumping sodium in dibadda loo tuuro meanwhile the potassium sidoo kale can diffuse wuxuu ku faafi kartaa freely si xur ah in gudaha ay ku faafaysaa and out banaanka of the exoplasm sawirkaas ayaa noo muujinaya sawirkan ayaa noo muujin anagu isdhaafi karaan way isu gudbi karaan وعجل waxa loo yaqaano action potential ficilka markuu gudbaayo action potential ficil marka yani uu yimaado uu wax gudbaayo an action potential waa ficil sama wax dhacayo potential macna in la saameeyo meeshii nageed in la saameeyo markay far imaado an action potential is localized change waa isbedel ku imaanaya an electrical potential between the inside and outside of a nerve fiber when stimulate markii stimulate ana wax farin la gudbinayo imaado waxaa isbedelaa leeyahay outside-ka dibadii iyo inside-kii ayaa isbedelayo outside waxaa ku ogeyn sodium inside waxaa ku ogeyn potassium labadaas marka waxay sameynayaan isbedel ay sameynayaan the inside became gudaha wuxuu noqonayaa positive charge mid positive ayuu noqonayaa halka marka hore ka ahay negative while halka the outside dibadda becomes ay noqonayso negative charge mid negative ah ayaa isbedelay marka gudaha waxaa soo galay positive banaankan waxaa u baxay negative si sawirka noogu muuqata ujeeda sawirka sida noogu muuqata this is called tani waxaa lagu magacaabaa depolarization la yiraahdaa the membrane xubka becomes wuxuu noqonayaa more permeable mid wax ay ka gudbi karaan permeable inay wax gudbaan diyaar u ah maadaama sodium-tii gudaha gashay potassium-tii banaanka aaday and because the sodium bambiga banaanka ayaa loo tuuray in the exoplasm gudaha loo tuuray this rise tan waxay sare u qaadaysaa the concentration xaddiga of sodium ions-ka ay sare u qaadaysaa within the gudaha exoplasm-ka relatively marka loo fiiriyo to the outside banaanka causing the potassium ions to diffuse out taasina waxay sababaysaa potassium ions-ka to diffuse out inay u faafto banaanka aado the localized charge stimulates the depolarization charge-gii isbedelay ee depolarization sababay
of the hair membrane xubka adjacent to it, thus propagating the deposition process. marka in wax gudbaan oo diyaar u yahay. This is immediately followed by tan waxaa markiiba raacaya recovery dib u soo kabasho ah to the polarized state xaaladii hore u soo kabanay. marka fariin imaaday sodium tii banaanka ay wadada gudaha soo gashay, potassium tii banaanka aaday, fariintii gudubtay, isla markiina ay wax soo noqonaya xaaladii polarized ka ah oo sodium tii banaanka aadaysa, potassium tii gudaha ay soo galaysaa. This action potassium along nerve fiber constitute an impulse. waxaa jira waxa loo yaqaano synapse and neuron junction. A synapse is the junction waa isgoys ama wax u dhexeeya between dendrites of two adjacent neurons. laba neuron ee isxigtaa godka u dhexeeya waxaa loo yaqaanaa leenahay synapse, as shown in a figure kan soo ku muujinayo laba dendrites ama u dhexeeya waxaa loo yaqaanaa synapse. waxaan u naqaanaa synapse. intaas kusoo gabagabay doonaa cashirkeena caawa. kulanti wacan oo wanaagsan waa inuu mar kale iyo cashirka xiga. haddaa kanalka ku cusub tahay fadlan subscribe saar, asxaabtaadana la sii wadaag. wixii tala iyo tusaale ah ama su-aal qabtidna commentiga noogu soo qor, insha allah waan kaaga soo jawaabi doonaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأستاذ محمد عبد الرزاق ونيغا تغيا نودينو.